قصة كلو عجب بدن وحا كيني الإمام البخاري في الأدب المفرد أيو كو كيني سند كيدون وحسن إلى الحسن بن أبي الحسن البصري حسن بن أبي الحسن البصري تابعي وها وحليه نمبا دنتي markaasa wuxuu ka tagay wiil uu leeyahay dhalay wiil yar oo dhalay iyo nin adoon u ahaan jiray weyn ninkii adoonka uu ahaan jiray buu la dardaarmo wuxuu ku yiri niyo wiilkaas yarka ah ka warhay oo kori markuu la dardaarmay ninkii adoonka ahaan jiray wiilka laga la dardaarmay wiilkii uu barbaariyay uu koriyay uu ku dadaalay uu weynaaday markuu qaan gaadhayna uu u guuriyay xaas buu yeeshay isagoo xaas leh ayuu marka wuxuu yiri jahizni atlubu alilma ya waxaan rabaa inaan cilmi raadsadee idir oo diyaari iyo wixii aan ku bixi lahaa iyo sahaydeedii iyo wixii diyaari waan bixi rabaa cilmi waan raadsanaya way buu yiri waa qaban qaabiye wuxuu rabay u diyaariyay oo uu aan bixiyay ninkii soo socday nin caalim ah cilmi leh buu yimid markaasuu su'aal weydiiyay fasaalahu wuxuu la joogay markaasuu wuxuu ku yiri ninkii caalimka baa ku yiri ida aradta an tantaliqa faqul li uallimka buu ku yiri markaad rabto inaad noqoto dadkaagii ku noqoto imo buu ku yiri aan wax ku bare hawl muhiim aan ku dhiibaya markaasuu u yimid ninkii sheekha markuu dabcay inuu baxo markaasuu yiri hadara minni alkhuruj fa'allimni waqtigan bixi lahaa la gaaray wixii aadii ballan qaaday bal ibar saddex kalimo baray marka wuxuu ku yiri ittaqillah wasbir wala tastajil soo saddex ma ilaahay ka baq sabiru hadegdegin sabiru adkaysi yeelo arimahana ha ku degdegin kaadso wuxuu ninkii isaga xasan al-basri waa marka tacliiqinay wuxuu leeyahay وفي هذا الخير كله وفي هذا الخير كله خير أردن بهلك كجرا صدق هذا قضب أي خير أردن كجرا ولا يكاد ينساهن إنما هن ثلاث ننكي صدق دي الرماد مهل مامين السيدو دي بو قبطي وصوتي ريركي وعلمي يكرر سدي يحاسكي يصير ريركي وكسو نقضي فجاء أهله فنزل عن راحلته hashi uu watay gaadiidkii buu xaggaas oo kale kaga soo degay markuu gurigiisii soo galay waa xilli la hurdo habeennimo ayuu faydahu bi rajulin naa'im mutarakhin 'an al-mar'a wa idha imra'atu naa'ima guriga haduu soo galayba halkaas waxa jiifanin xaaskiisina halka loo kale jiiftaa iskuma ay dhagana islamana jiifaan laakiin way kala jiifaan midna xaaskuna halka ay jiiftaan ninkuna halkaas uu jiifaa way kala durugsan yihiin markuu arkay wuxuu yiri wallahi ma uriidu antadiru bihada tan wax la fiirsan karo la suugi karo ma aha waa ila tilaawa ka qaado ninka naagtaydii iyo gurigayga iyo waxaan dhex jiifaa faraja ila raahilatihi hashi uu noqday seef baa ugu jirta seeftii buu soo qaatay marka falamma an arada an yaakhudha sayfa markuu seeftii la soo baxay yiri ayaa wuxuu xusuustay ittaqillaha wasbir wala tastajil يا هل لو دي كلمه صدح دي كلمه لو سو سي الهي كبق صبر هنا دغدغين انتي بحصوصت سيفتي وكيمد ويسغا سو تغ وا سو نقday hadana gurigii buu u soo galay hadana markuu ninkii islaantii soo dul istaagay buu hadari wallahi wax la fiirsan karo ma waa noqday safety rasuul hadana safety buu u tagay markuu ratigii iyo safety u tagay oo safety qaada uu isiri ayuu hadana wuxuu xusuustay ittaqillaha wasbir wala tastajil ajab waa ka soo noqday hadana ninkii buu dul yimid xaaladii buu hadana u adkaysan waayay wuxuu wallahi tan hadana laba fiirsan karo war adigu saddex goor buu marna safety u aaday marna uu ninkii soo dul istaagay markii u dambeysay soo dul istaagay ayuu ninkii hurdada ka kacay haduu hurdada ka kacayba waa ninkii koriyay ee mawlihiisa ahaa ee aabihii kala dardaaran waa la isku booday shafka la is saaray qoorta la is dhaafsaday waa la is salaamay markaas wuxuu yiri ma asabta baadi waa la is warsan Soomaa waa la wada fadhiistay hadee wargadaashay maxaad asiibtay oo waadigi naga tagay maxaad keentay maxaad wadaa cilmi yaa maxaad la soo kulantay
markaasaa wuxuu yidhi asabtu wallaahi bacdaka khayran kaiiran buuri ilaahay baan ku dhaartay gadaasha khayr badan baan soo helay oo maxaad soo heshay asabtu wallaahi bacdaka أني مشيت الليلة بين السيف وبين رأسك 3 مرار بول waxaa soo helay waxa weey caawa wuxuu yiri 3 goor baan madaxaaga iyo seefta u dhaxeeyay buu oo marna seefta aadahay marna aan ku soo dul istaagayay buu طيب فحجزني ما أصبت من العلم عن قتلك بuu in aan ku dilo caawa oo seefta madaxa kaaga gooyo waxa iga reebo iga hor istaagay wuxuu ahaa wixii aan soo bartay oo maxaad soo baratay oo ninka ka celiyo ka badbaadi ittaqillaha wasbir wala tastajil haduusan kelimada ilaahay ku anfici lahayn maxaa dhici lahaa ninkii koriyay buu seefta kaga goyn lahaa madaxa kaga jari lahaa haduu madaxa kaga jarana maxaa dhici lahaa nin dhiig islaam galay buu noqon lahaa oo ahlu naara tabaalo talabaadu abaalaaw noqon lahaayo ninkii yaani gacanta ku lahaa buu bilaash ku dilay Soomaa marka waxa soo dhan muxuu kaga badbaaday wala tastajil hadagdagin ya khubsiima maxay dhan Soomaalidu ya khubsiima halba la siistaa khaasatan meelaha xarijka ah oo aan sahlanayn ha ku dagdagin aad u fiirso oo ka warwareeg oo rog oo muxuu ahaayay ha degdegin hadaa degdegto oo sheeydan ka shaqaysto markaasi waxa ku dambeynaysa markaa nadaamo iyo qoomamo iyo wax aadan bari daawadiisa heli kareen